كي على عارفه سياسيا مر والبا اسكو horjeedeen ayaad waxa secretary general du gouvernement tahay yaana darajada marka u sareysa nin reer Djibouti ah shaqad oo gumayso u dhiib ayaad haysaa marka waad wada shaqeysaan sidee bay ku dhacday horta barigii waan kolkan islaynay in iska hornimid doorashadii 8 ilaa Faransa ka imid ismaan fahmin bayado laba dhanbaan isku hen way iska qaateen waraaqadanka 400 oo ku helnay bay iyaga helay iyo waxa sida baadday u dhacdayo way joogay oo ani iyo saaxiibka Ismaaciil Ali iyo rag kale badan shaqadu ka eriyay ana ilaa aqalkii baa layga eriyay aqalka dawladeed baa ku jiray mar dambe kolkay asxaabtiisi odayaashii tujuro khusuusan arkeen in meeshan la jabin doono oo Abdullah Kamil jabin doono ayay yimaadeen oo heshiisiino heshiiskii sidaadii iyagu doonayaan waxay doonayaan inaan anigu maxay dacwadan aan France ku socota iyagu anu ma fahmin ma ogeyn ma sheegi jirin sheekada France lamaan lahayn relation kale laakiin waxaanu kolka ay maqleen ay fahmeen inay arrintan jabi doonto 27 ayaan yimaadeen oo aan heshiino heshiiska waxay u doonayeen anu inaanu ka saaro dacwadda oo ka noqdo taa ilaygama helin marka dambe Ali Arif baa kaliya asxaabtiisii way daaliyeen bayado habeen kasta imanayeen oo iga sheekaysiinayeen ulku arkay inaanu waxaas ku jirin kale iska shaqayso igu yiri sidoo runta isaga yeeray oo igu yiri kale shaqayso sabanu shaqadii aan la joogay dalkuna wax dhaqaaqaya ma jirin waaniga kule ya bombido ma bone blaayo balambone iyo ya meesha waayay Ali Arif oo birogiisa la wada buuxo dadkii 20 iyo mooyaan barga 40 inay heeday u wada xireestay ya meesha jirtay in mar horena xisbi aan furtayna ma jirin maan raacin wala Ahmed Diin iyo sheekhana maan raacin waxaan iskaga aray meeshani shaqadeydii haddana Ali Arif wuu iska garanayay inaan waanan ku niri 74kii aan kugu celiyay 74kii kulku ku dhawaaqay anna hadeed dankii 40 kuna Francisco naga tagtay uu ku dhawaaqay ayuu nagu ururiyay aqal oo sifada kabineegiisa Abdulqaadir Abdurrahman ayaa iska yara nafisa ayuu nagu wada yeeray waxa dibiti afara iyo wax personality afaraba ya ku jiraan Maxamed Aadan iyo kullu way ku wada jirno joogno meesha wuxuu yiri anu sidaa baan doortay soo iguma raaci doontaan maga raacaysan waa lagu wada raacay kulka isagoo iska garanayay anagu waan aamusno annakii shakhsiyan weydiiyay kulka dadka kale jamcan ya adii Abdullah Kamilow maxaad leedahay anu saaxiib warigay ku Usmaan ande bandas hadaan doonayo meelo kale ka doonane adiga taada ma doonayo Ismaaciil Alina oo hay sugin sida waa barnaamijka unique marka waa barnaamijka unique ma barnaamijka Ali Arif weeyaan unique waa bartiyo Ali Arif ka maamulaya waa dadku afartu kulku ugu yeedhay ay ku raaceen weeyaan ay ku raaceen unique ay ku raaceen labada yadii baad meesha waa la joogay isku soo baxnay waa la iska wada garanay horeyba inaanu waanigii ku yiri shadan imid ugu horeysay uu igu soo doontay ilaa aqalka awale meerane saaxiibkay loo naxariistay saaxiibkay walaalkay uu fariin la yimid mid dilayta la yiraahdo oo dibiteegiisa ahaa oo yimid oo igu yiri waryaa waxa lagu leeyahay Ismaaciil Alina keen adna kaalay
anu adna kaaleedii waan raaci lahaa bariga barkaani mid un bay hada 4 laakiin Ismaaciil Cali deede ma ri'an dhagta qabto la keeno waxa saaxiibkay anigu intaan idhaaho wariyaha Ismaaciil Cali wayna marayna adeerkay Ali Arif baan u tagaynaa waan diiday cishada baan dabadeed marna siyaasad ahaan maan heshin sida kale waan wada shaqeynay sidii runta cishada dabadeed annagu waxaan ku tirsanay haddaan maanu tagin Ismaaciil khusuusan wala saaxiibkay relation badan buu la lahaa rag badan dhanka Soomaalidu khusuusan aad buu ula lahaa dhankan raggan LBI-na hadday tahay raggii uu lahaa anu waan wada taqiinay hore baan isu wada naqiinay laakiin siyaasad ahaan aan u dhawaaday leeno dhanna secretary general ninkan baan la shaqeynaya isaguna muu oran ninkan uu ku khayamadeynaya iska eri wuxuu u diiday baa isaga yaqaanee annadeed intii kale uu sii xoojin miyay ma kula eg tahay haddaan kula kaftamo halkan ku hay si uunan dagaal kugu qaadin koleyba way noqon kartaa inay waxaas jiraan leeshdeed marka hore baa qalku iga saaray uu eriyay bay ahayd tanna imika waa caddaan inaanu diidnay haddana niyadkiisa ma gali karayo sida ma dhaafi karayo inta laakiin isagaanu la joogay ilaa cishada laygu yeedhay marka dambe bal haddeed waan u jeesanay bal yara maamuloo xoogsi garanaysidee waxaan siyaasaddii halkaa maraysa oo haddii lagu dhacay dee waddadii markaa dadka reer Jabuuti way sare joogaan gobonimadii haddii toole Francisco waa isku ogol yahay oo haddii toole isma hortaagayo waxaan la is hortaagi karay walbay noqotay ayay noqotay sida arrintu waxay tahay ayaa uu dimisyonin doonaa ninkii markaa uu gumaysto oo dhigtay waddanka ka talinayay Ali Arif adiga ayaa taladii qabtay wala ii dhiibay ayaa la ii yeedho la ii dhiibay siday ku dhacday arrintaas sidee lagugu yeedhay ayaa kula soo xidhiidhay markaa assembleygana kuma aad jirtid adigu assembly kumaan jirin partiyadana kumaan jirin secretary general Ali Arif la shaqeeyo baan aanu ahaa inkastoon waxaan wada dhandee la socday waa magaaladan joogaaye oo mabaariista aan tago iyo meel kasta la socdo maxaa laygu yeedhay mar dambe xasan guuleed baa odhan doona waryaada adiga kaftan odhan doono aan ku qornay qabla 3 sanadood wardoosiyada taqaana iyo waxaas had yiraahee anu inuu xasan guuleed uu isiyiri ninkani waxaan siinayaa hay'ad confiance inuu isiyiri kalsoonaan ninkan baan siinayaa waan huba inuu yiri isiyiri baan u haystaa sidoo igu yeeray sanbati horena waanigii ku iri way jirtayoo odayga yani si ixtiraam weyn iyaan u lahaayo bas kol arko salaam yani ixtiraama in mar uu bukoodayna ilaa dhakhtarka mar iyo 2 goor aan ugu tagay caara iyo isha intuu dhakhtarku galay waa qof yani karti katr kii la gali jiray barigii aan yareen oo xasuusanahay inay isagii ka timid kolley ba asxaabtiisii way kula joogaan laakiin asxaabtiisii siyaasad ahaan baad sheegaysaa sida kaleba si fiican aan isku naqeynay ma jirin haddaan idhaaho Idris Faarax haddaan idhaaho Muumin Bahdoon dan raggaasi Ismaaciil Geedi yaa jiray oo si fiican isku naqaano ilaa iskuulka barigaan yareen aan wada dhigan jirnay ilaa shada ya Ismaaciil Geedi ayaa meesha jira ina Ciise Ali Fanaxna waan isarkinay Ibrahim Harbina waan isrinay laakiin
maaha siyaasadeed ya ha dadkaasi kolleyba dee uu ka dhaadhiciyey odaygii uu yidhi ninkan aan u dhiibno haddaba maxay waxun baan anugu odhan karayaa waxaan dadkii kale ka iqiinay waa shaqadan dowladeed ya doosiyada sida loo yidhaaho iyaanu dee shaqadaydiibaa baheedba doosiyadani dhaqaalaha in horumarka dhaqaalaha iyo iskuullada iyo waxyaalo badan oon lacag yaro faransiisna soonayay ayuu shaqada ii dhibay cali caarif anu oon dee waxaan wada dhan waan wada iqiinay taa waan kaga roonaadee raggan kale aad iyo aad yani si aadaan waan uga horeynaya shaqada si kale siyaasadda sedeed ninka ugu siyaasad bartay oo siyaasad ku wax ku helay oo ku shaqaystay marna maa noqon in marwooyin iyo mudanayaal intaas ayaan habeenkan caawana kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkeennii aan kaga hadlaynay taariikhda independence-ka Djibouti ama gobonimo doonkii iyo run ahaantii aan ku wareysanaynay Cabdalla Maxamed Kaamil oo loo yaqaano Cabdalla Kaamil tan iyo intaan hawada dib ugu kulmi doono waxaan idin leeyahay ideelkiinba aways wacan